maanta waxaan ku tusayaa side hustle dadka lacag waalan ay ka sameynayaan waliba dadka isticmaalayo side hustle kan waa dad ajnabi ah dadkii wax ka iibinayaana waa dadka Soomaalida ah qofkan markaan qiimeeyay lacagta wuxuu ka sameeyay side hustle kan waa Etsy store uu sameystay waaye $46,000 waan ku bilaabay aan ku tusayaa haddaad Etsy store aado a Somali product u qorto waxyaalo fara badan ku jira Soomaali sameeyaan so dadkani usually lacagtan sameeynaya waa dad ajnabi waay dadka waxa laga iibinaya waa dad Soomaaliya for example hadda ka soo qaado kale hadda this is I'm not perfect but I'm Somali qof ajnabi soo sameeyay waxa kaga daran tan kan oo kale hadda ku jira I'm not perfect but I'm Somali the same thing whatever so qofkan waa rate ku haysta waa 5.9 almost 300.6 qof ayaa iibsaday waa almost 3600 waay marka lacagta ku dhufato lacagta an average ka sameynaya 12,000 I mean 12 dollars 99 almost $13 ka sameynaya qofkan marka ku dhufato that number this number ku dhufato wuxuu sameynaya lacag 46,000 ayuu ka sameeyay laakiin basically wuxuu sameeyay ku sheegay qofkan aan ka faa'iiday the first thing first Canva uu aaday any waxa doonta ku sameyn kartaa for example hadda waxyaalaha trending garanayo waa Ramadan kan ku jira Soomaha hadda soo qabsato kan oo kala soo qabsato less it doesn't matter waxa doonta soo qabsan kartaa Ramadan mubaarak ka soo qabsanaysa waa customize garanaysa waxa doonto then waa save garaysanaysa waxa doonta ka bedelaysa add color ku daraysa everything ku daraysa kadib markaa save garaysata kadib meel ku save garaysanaysa it doesn't matter halkan tagaysa hadda doontaan inaan ku soo darabtina sida loo save garaysto then download adhaysa waa download garaysanaysa then download then the next step waxay noqonaysaa in aado website loo yaqaan Printify gan waa usually waa free waa marka qaar lacag kugu charge garanayaan laakiin hadii marka qaar free ku siinayaan the first few items free kaga dhigayaan Printify ani hadda account aan ku leeyahay so hadda aado hadda for example kale product fara badan ku jira laakiin hadda ka soo qaado Kafka kale let's go back dashboard aan tagaya so there's a lot of product ku jira waxa doonta ka dhigi kartaa laakiin let's say coffee aan ka soo qaado this coffee mug aan ka soo qaadaya coffee mug aan ka soo qaado waa design garan kartaa saarkaysan start design na leedahay marka design garayso waxa upload garanaysaa whatever ku upload garan lahayd so upload gastay boom then the next step waxa sameynaysaa waxa isku xiraysaa this Printify iyo Etsy wax loo yaqaan integration ku sameynaysaa then way isku dhamaatay so videogan si degdeg ayaan ku sameeyay haddii rabto asagoo by step guide ah inshallah isoo follow garee waa in soo gelinaya video kale in soo gelinaya asaga the whole process san u sameynaya dhan waa in soo gelinaya darabtin hadda u baahan tahay Etsy link hadda u baahan tahay waan ku siinaya hadda haysan Printify all the links hoosan soo dhigaya hadda YouTube channel iga daawanayso subscribe ku qabo hadda YouTube iga daawanaysana TikTok iga daawanaysana inshallah soo follow garee sawarto side hustle fara badan iyo arrimaha real estate investment iyo howlaha real estate ku saabsan inshallah assalamu alaykum